asalaamu calaykum saaxiibayaal kusoo dhawaada 5 daqiiqo halkani waa 5 daqiiqo waxaan soo gelinaa muuqaalo xiiso leh oo arrimaha khuseeya iyo weliba arrimo kale oo xiiso badan fadlan hadday tahay markii ugu horreysay halka soo gaartay ha ilaawi inaad barta cas taabatid si ay kuu soo garaan muuqaaladu markaan soo gelino xalqadii ugu dambeysay waxaa soo baxay arrin weyn sidaan hore u sheegnaba waxaa guriga ka baxsatay haboon waxay u muuqatay markii horeba mid aad iyo aad uga niyad jabsanayd xaaladihii ugu dambeeyay guriga kusoo kordhayay gaar ahaana markii arrintu soo gaartay in la damcay in lagu daro qof xanuunsan oo aan maskaxiyan dhamaystirnayn haddaba muuqaalka waxaynu ku falanqayn doonaa halkee ayay jirtaa haboon maxaynu ka ognahay meesha ay aaday mase soo laaban doontaa ugu dambeynta jamaalse ma ku guulaysan doonaa inuu helo oo uu dib u soo celiyo marka hore aynu ku balowna waxaynu u baahannahay marka hore inaynu caddayno in haboon aysan marnaba magaalada ka tegaynin laba sababood ayaynu taasi u sababaynaynaa marka koowaad haboon waxa ay dhigataa jaamacad sidaas darteed ma ka tegayso jaamacaddeeda ma ahan gabar ku khamaari karta waxbarashadii ay muddada dheer soo waday sida aynu ku aragnaba haboon waxbarashada aad ayay u jeceshahay waxayna aada u xiisaysaa inay dhowaan qalin jabinaysona waa ay ku faraxsan tahay tan labaadna waxaa weeye in magaalada uu joogo ninka ay jeceshahay waa jamaale sidaas darteed marka hore waa inaynu aaminaa inay magaalada joogto taasi waxay inoo xaqiijinaysaa inaysan marka hore magaalada ka bixin balse haddaba xaggee ayay joogi kartaa haddaba doodaasi waxa aynu ku qancin karnaa dhowr arrimood marka hore haboon waxa ay leedahay saaxiibo jaamacadeed arrintaasi waa macquul in ay u tagto islamarkaasina ay iyaga la joogto sidoo kaleetona aragti kaleeto ayaa iyaduna waxa ay sheegaysaa in ay goor horeba jamaal meel isgeysteen islamarkaasina uu jamaal ogyahay meesha ay joogto balse uu keliya iska dhigayo qof aan ogeyn meesha ay joogto taasi waa aragti gaar ah waana arrin iyada nafkeedu su-aalo fara badan keenaysaa haddaba haboon ma soo laabanaysaa arrintaasi ma ahan arrin u muuqata in ay dhici karto dhowaanahan dhowr sababoodba haddii uusan marka hore jamaal la ogeyn meesha ay joogto ma faadi doono inuu helo balse arrinta weyn waxa ay tahay haboon ma laga yaabaa inay la soo xiriirto jamaal ayna ka codsato inuusan cidna u sheegin taasi ayay u badan tahay waxaana laga yaabaa in ugu dambeynta jamaal nafkiisu uu guriga ka tago isagoo aada meesha iyadu joogto si uu uga agdhowaado islamarkaasina ay saas nolosha ku qaybsadaan sida aynu aragnaba haboon aad ayaa looga tegay gurigii waxa ayna u muuqatay inay ahayd udubdhaxaadka islamarkaasina qofka ugu weyn ee kala waday howlaha guriga durbadiiba ismahaan oo ahayd qofkii aadka u nacba haboon waxa ay sheegaysay islamarkaasina ay leedahay waan u xiisay xiisahaasi haddaba ma mid ay ugu xiistay shaqada ee la qaban jirtaba mase haboon ayay nafteeda u xiistay iyada nafkeedu waa su-aal waqtigeeda iyo meesheeda u baahan in looga jawaabo saaxiibayaal halkan ayaa soo gelin doonaa falanqeyro ku saabsan arrimaha filinka haboon iyo weliba arrimo kaleeto xiiso badan kuwaasi oo halka usoo gelino si maalinla ah fadlan halkan furo kambaleelka si ay kuusoo gaaraan muuqaalada aan soo gelino aad ayaad u mahadsantihiin dhammaantiin